sideedaba qofka muslimka ah ee bani aadamka wuxuu u baahan yahay qalbiga inaan laga jebin ee qalbiga loo dhiso niyadda in loo dhiso oo qalbiga loo dhiso nolosha wax badan baa qofka ku imanaya xanuun baa imanaya baahi baa imanaysa colaad baa imanaysa geeri baa imanaysa baqdin baa imanaysa farxad baa imanaysa shaqo la'aan baa imanaysa dagaal baa dhacaya mushkilada iska imanaya deyn baa imanaya waxa u baahanay marka inaan qalbiga la iska jebin oo la isku qalbi wanaajiyo dadka qalbiga qofkii hawli ku timaado inaan la oran khalaas waa u dhamaatay kaas oo aan lagu dhaga hadlin oo saa lagu oran laakiin niyadda loo dhiso sidii ku hagaagi lahaa marka haddaynu inagu ummad muslima nahay soomaalina weli gaar ahaan nahay hawlaha badan ee mushkiladaha ina haysta wax badan baa qalbi jab ay nagu keenaan iyadoo hawsha culayskaasi jiro baynu haddana innagii meeshaynu qalbiga isu dhisi lahayn baynu isa sii qalbi jebinaynaa markaasaa qofkii wuxuu noqonayaa qof jugtii ku dhacday iyo dhibtii soo gaadhay walaalkiisii barbar joogay meeshii laga rabay inuu niyadda iyo qalbiga u dhiso in markii uu yidhaahdo waa khalaas tusaale ahaan hadda maalan qof baa xanuunsanaya dhakhtar baa la dhigayaa isagoo xanuunsan baa loo tegayaa xanuunkaasaa haya maxaa la odhanayaa hadhow marka xanuunkaasoo kale hebel iyo hebel buu ku dhacayoo kama kicin ninka uu ku dhaco ka kacay lama aragba ninkii jiifay ee xanuunsanaya haddii layidhaha ka kici maysid maxaad u malaynaysa khalaas waa sii qalbi jabay soo maaha laakiin waad bogsanaysaa insha allah xanuunka iyo jirjileeca looma dhinto adayga iyo caafimaadka laguma waaro waa ladnaanaysaa allaha bukaanka keenay baa caafimaadka keenaya khayr bishaarayso adoo ka kacay oo jamicii masaajidka ku soo tukanaya oo danahaaga qabsanaya oo diin iyo dunyaba ka shaqaysanaya baad arki doonta qofku wuu farxaya marka niyadda wanaagsanaadis marka wax kasta waa tusaalahan baan uga jeedaay qofkii carruurtu ka dhintaan oo kale inaan la odhanin maxaan ku idhaahdaa waxa weeyaan kaasi ilmaba u noolaan maayaan haddii ilmo u noolaanahay hore ugu noolaan lahayn carruur ama noolaan mayso kii xaasasku ka dhintaan in la yidhaahdo kaa ayaan la guursaday naagtuu guursado waa dhimataaye dhowr baa ka dhintay yaan loo dhowaan in la yidhaahdo isagii marka dhibaatadii ku dhacday dhegxumadaa uga daran dhegxumadan kale lagu hayo baa uga daran kii daymooybay oo kale kii maxaan ku idhaahdaa baahan oo kale kii aan waxba garanayno u baahan aqoon loo kordhiyo kale inaanu dhibsanin kii wax ku dhaamay wax weydiinayo inaanu dhibsanin wixii aqoon iyo cilmi uu ku dhaamo uu u sheego kii macallinka ahaa ama maadi ha dhigo ama diini ha dhigo qofka uu wax u dhigayo inaanu niyadda ka jebin oo aanu odhan maxay waxba baran mayse damiin baa tahay adiga u malaynmaya weligaa inaad qof wax baranaya aad ilmihii yaraayoo ninkii macallinka ahaa ee uu ku dayan lahaa ee waalidkii labaad ahaa ee lagu aaminay loo keenay ma waxbar baa la yidhi ilmaha mase qalbadda ka jebi baa lagu yidhi ilmihiiyo markaa casharkiina ku yara adkaaday waalid macallinkiina qalbiga ka sii jebiyey hadhow niyadba uma haya waxbarashada ilmihi waayo dee wuxuu ku yidhi damiin baa tahay ardaydii oo maqlaysa fasalkiiyo buuxu wuxuu ku yidhi adiga damiin baa tahay wax fahmi maysid maskax dhagax baa tahay waa caynkan sax maaha waxaa ka mid ah ninku islaantiisa iyo xaaskiisa oo kale noloshu ka dhaxayso inuu ka ilaaliyo hadallada qalbi dilka ah iyo qalbi jabka ah oo markaa gabadha ama akhlaaqdeeda khuseeya ama diinteeda khuseeya ama nasabkeeda khuseeya gabadhii uu qabay xaaskiisa ahayd baa laga yaabaa inuu nasabiyaddeeda caayo aabbaheed caayo oo hooyadeed caayo baa dhici karta ama qabiilkeedaba caayo ama tabci ay leedahay uu ku caayo waa xaaskiisii ilaahay u xalaaleeyey awlaadda alla ka siinayay tabci bini aadamku tawaayicdu waa kala duwanta meeshuu qalbiga u dhisi lahaa oo caynkan inuu maaragta caynka sameeyo waalidkii waxaa laga yaabaa ilmihiisii qaarkood ilmuhu dee isku mid noqon maayaane inuu maxaan ku idhaahdaa niyadda ka jebiyo waxaasoo dhan marka looma baahna ninka uun siyaasiga ah inuu shacabku xukumo qalbadda ka jebiyo madaxweynuhu saasoo kale ninka sheekha ah ee dadka wax u akhrinaya ee diinta u dhigaya ama wacdinaya waa inaanu ummadda
إنه رسالة ربا مسكحة كدسو وإلهي كحره لكن ماذا إنه قلبه كدل الله مرة وقلبه كتشبيه سيدا وقت بوحي علماء يرهدا ضدك أو قلبك الله دسو مسلمين تأهي وحا كتشر فائدوين بدن كو هرته وقادا قلبك أو ضدك الله دسا وعبادوين كإلهي اللي قد وهذا كاميرا عبادات كإلهي اللي قد وهذا كاميرا سبحانه وتعالى تصالي اللوران كيني دونا حاجة كالقفك ضدك قلبك أو دسا نفتو ذا دسا أدس الدين هاني الدنيا هان وقف نفس ديسو وقف همي النفسات آدو سريسا له وقف قلبك سوين يهي وحبضان وحنباري كرو وقف على الفيو وضدك عن عقدد عراد عداود من أن أقبل على الفي عن قلبي فيو وربضتك دنيني وناك سنادان شرفتو دو وناك سناتو دين تو دو وناك سناتو آخرو دو وناك سناتو maaha qof ciil iyo caraqaba oo dadku inay rogmadaan oo baaba'aan jecel maaha xagga kale waa qof aqli badan waxay ku tusinaysaa inuu aqli badan yahay qofka dadka quluubtooda ilaalinaya kiisa in la ilaaliyo rabo dadka quluubtoodu ayuu ilaalinaya sida awgeed in nafta la kabo aad bay u qiimo badan wuxuu oran jiray Sufyaan ath-Thawri ma ra'aytu ibadatan يتقرب بها العبد إلى ربه ما أرك عباده وقفك ربك أقدواده مثل جبر خاطر أخيه المسلم كبست أوقفك ولالك مسلم كقلبك سأوقفه عبادتها كوين ما أرك وهي قفك بعد صور إنه كلا تشهده مسكح حديث مسكح في يوم كانوا أنه قفك سكرا نقنن وهي المهمة دمشة تعالى قرآن كان آد بأقوب بدن تهي وآد كو أركيسا ميلا بدن الله سبحانه وتعالى وكت المامي نبي الله محمد وفيرسو وقال الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك لا ابتعد ميانا واسعين نبي محمد عليس كيكو هيي سو كامدة جنب إلهي سبحانه وتعالى قلبي قال لا ابتعد صوماء ننفرين وأركي دونا نبي الله موسى أيوه وقعدي كدعدي وأركي دونا نبي الله لوط مركي أوي مادين ملائكتي أو أي السعودان قلدان إني رجال وحد عضي إني دتكي قوم كيسة كسوف فكذين ملائكتي إن وحي أهايم رج وحكت دونا أهايم وبصر حن ودقن حن بأهايم الله سبحانه وتعالى وتلمام يايو ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا نبي لوط مركي أوي مادين رسوشي أن صادرني أو ملائكتي قوم كي سوا حميين ملائكتي أو بشر اسكسو ديكتبي كسو ففكنيان أو ربان إني فرحمين كسو ميان أرنتها سيمروق بلادك مرتي كو تشوكتا وددكي مقالة تشوغي لقى علي الله كوا وربان دباته وقيستان إلهي وحوت الله سبحانه وتعالى وضاق الله وحوت الله سبحانه وتعالى بهم ذرعا لابتيسي وحيكوك عيين ويعريريونت عيل عدادس حوق له بو ضريمه إلهي ووجهوا أبنير وقال الله سبحانه وتعالى محيري وقالوا لا تخف ولا اكتب الله هذا الشيء هعبصنن أنك وحمنك ما قاعد كران بني آدم بين موديان صورة بني آدم ما دام يسوسو يانلي لا تخف ولا تحزن نبي لوطو هعبصنن أنك هنوبقن هولولين همروغون إنا منجوك وأهلك هلاك أرورتي ودعي دونا أنا وكو بدبادينينا ضدك أغانا وبدبادينينا إلا امرأتك إسلام تادمو يعني إسلام تادو وقال إياغينا الله شقيساه بمعنى مركع عدي كوتي ما دي ودكتا وهولها سيكلا شقيسا ما دام أي قالته إسلام تادمو يعني كانت من الغابرين iyaduna waxay noqon doontaa kuwa cadaabka ku hara meesha lagu cadaabo ayaad maxaan ku raadey u noqon doontaa rasuulka markale sallallahu alayhi wa sallam markii maalmo waxyi kala go'ay oo nimankii quraysheed ku dhaga hadal ku badiyeen oo ay dhibeen
إلهي محكويري ولسوف يعطيك ربك فترضى محمد إلهي وكن رالي جلين دونا وترالي نقون دون تبع الله سبحانه وتعالى الدليل هذا سبحانه كتوسيسا سيد إلهي أنبياء قلبي أقول الصيف يضع أنت كفاه فحسنا وأركي دونا إلهي مركل وحوري سبحانه وتعالى ورفعنا لك ذكرك شرفت هذا يحسك هذا كربا نقادنا محمد صلى الله عليه وسلم وعنا يكوها الله يعني وواليه وساحرولي وبينالي قلبي كاجا توريان حبياني كسامين شرفت هذا يريك يا كربا نقادنا قف صلاة كذا متشره إلى نبي الله محمد بصوق هذا عليه الصلاة والسلام مركو توحيد سنة قف الدماء متشره إلى نبي بصوق هذا صلوات الله وسلم بدأ قمام متشره إلى نبي بصوق هذا صلوات الله وسلم سلي سؤال عبادك الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى ومرك الرسول كسوى قلبي أودي صيح واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليه أتكيسو صبر أبالك صبر كاوليه إلهي أكتبك ويالا ولا تحزن عليه هكمرغون كون كان ولا تكن في ضيق مما يمكرون لا ابتادوا يعني كعري اليوم وعليس كدريم وحنا ملايغيان dhibaatadan inkaaraha inay sameeyaan ay rabaan iyo ku saameyn buu Allah leeyahay subhanahu wa ta'ala nabiyullah yusuf abihi su'ala wa sheekay subhanahu wa ta'ala falamma dhahabu bihi markay nabi yusuf la tageen wala ladii wa ajma'u ay yaj'aluhu fi ghayabati aljub oo ay go'aansadeen inay ceelka salka u dhigaan oo ku tuuraan ay go'aansadeen wa awhayna ilayhi لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون ونوحيوني وحا ay kugu sameynayaan maanta iyagoo aan dareensanayn baad uga warrami doontaa maalin kale nabiyullaahi yuusuf ba ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala nabiyullaahi ibraahim waa arki doonaa waa tii dabka lagu riday inna ibraahiima kaana ummah dadkii oo dhan baa ka hor yimi waa loo shiday god baa la qoday xaabaa lagu shiday muddaa la shidayey in la gubaa la damcay ilaahay wuxuu yidhi isaga keligii baa ummad u dhigma ninkan inuu ilaa ibraahim ummad baa ka hortimi soo maa ibraahim adiga ummad u dhigma ummad dhan baa tahay inna ibraahiima kaana ummah qaanitan lillaahi xaniifa waa addoon ilaahay u qunuuda subxaanahu wa tacaala oo khushuuca u hoggaansan waxa alla wixii shirki iyo xumaana ka soo leexday walam yakun min almushrikiin mushrikiinta ka mid maaha الله سبحانه وتعالى ساس uga waramaya marka qalbiga marka sida u dhisay anbiyadiisa rusushiisa waa arki doonta waxaan arki doonaa ahadiista muslimiinta qalbigooda si loo dhisayo xagga ahadiista imaam al-bukhari wuxuu soo saaray xadiis ajab leh oo al-bara ibn azib al-ansari uu warinayo nabiga sallallahu alayhi wa sallam markii uu u soo baxay umratul dhil qa'da horta nabigu hal marna waa xajiyey sallallahu alayhi wasallam hal mar wuu xajiyey sababtu hal mar uu xajiyey waxa weeye magaaladii Makka waa la haystay gaala haysatay sanadkii 8aad baa la furtay sanadkii 9aadna Abu Bakar Sidiiq iyo Umar iyo rag badan oo saxaaba abu soo diray nabiga sallallahu alayhi wasallam oo xajka yiri hogaamiya ummadana wargeliya inaan sanadka soo socdo imaan doono حلا وحي ماشى يا لي أصنام يا وحنا ورا لو جن ذيفي قالوا قف دنبو قالوا مشرك أهنا حرم كاس ما إيمان دول النبي صلى الله عليه وسلم سنة كي طبناد بوسوا حجيي مركي أو حجيي خد بديسي وحكم ذا لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا حلا جاي بقينا سنة كي جن كبعدي إذن لكل موايا دعي كرت والنبي سيت المام يا جيريدي صلى الله عليه وسلم مركو حجك كان قضي لا سديتن يلبها بين بونولا أما الله ببلاد يلبا تنبري بونولا النبي صلى الله عليه وسلم كبعد نواب انت مركا هالكا أمر بأصورة قشين وحجيو صلوات الله وسلامه عليه أفر جيرنا وعمريستين النبي صلى الله عليه وسلم أفر تجير وعمريستين بشهد القعدة أي النبي وعمريستين صلوات الله وسلامه عليه وبشهد صنفرات كدن بيسا أي النبي وعمريستين رمضان وطين وصو صعوتين سقال رمضان النبي هو صومي صلوات الله وسلامه عليه إمثال رمضان بالنبي محمد صومي هدي له قيراده سقال رمضان بالنبي صومي صلوات الله وسلامه عليه مركا رسولكم مركو عمرديسي وبحي
تبعته ابنة حمزة حمزة أديركي سوماهين إنن أدلي وير أيا ضبق الشيء وهي تقول يا عمي يا عمي يضوله أذر يضوله ومحي أذر أولاده ابن عمي محورا ويدي إن أذركي ويلكي سيو محورا ويدي دي حمزة يا رسولك ناس بيود النوجين حق الناس كي كول عليهم حق كلا نسب كنا ويسو أذر وكي أذر له يا نبي صلوات الله وسلامه عليه marka inanta yar marna nabiga waa ilmaadeer salawaatu allah salaam alayhi marna adeer buu ugu yahay maadaama aabaheedu naas la shaqay adeero bay tiri marka falam yasma'uha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulku ma maqlin marka fatanawalaha ali baa gabadhi gacanta qabtay wayna adeerkii baa dhalay sooma ali baa gacanta qabtay radiyallahu anhu fa akhadaha bi yadihi وقال لفاطمة أو قبي ورسولك قبدي سيهيد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها بوحي كيري دونك ابنة عمك احمليها قبو احمليها قبدنا عذير كاد علي قبو دقات وسيفي عنوها قاتش وكوري وكا وحا أركا يوم ميشا كدو جعفر بن أبي طالب ما اسنا ميشا كدو مركاسة أو دي علينا أي ولا عليهين رسولكنا صلى الله عليه وسلم الماديريين قبضنا يرنا الماديريين بعلي ماشي تاجن اسمه جعفر با قبض قبصة دي مركب فأمسك بالطفلة قبض جعفر كدقي وقال أنا أحق بها قبضنا أنا عيد كوريسة أنا وحق لي هذا عيد قرية إذا جينا يسوء كورينا يسوء هوشا وضع يسوء إنني قمدني ما تشيله وهي ابنة عمي ورتمر قول رئيس وإن أذيرتي marka labaadna habaryarteed baan qabaa wa khalatuha tahti habaryarteed baan qabaayo habaryarina hooyay kula mid tahay zayd ibn haritha arkay hadalka meesha ka socda zayd ibn haritha waa nin rasuulka isaga iyo aabihiiba aad u jeclaa weeyaan baa arkay markaas wuxuu ku yiri ibnatu akhi war labadiinaba jooga labadiinaba bulkaadiye gabadhan walaalkay baa dhalay aan islaamnimo walaalku lahay baa dhalay وحمزة وكدودن مركب إن أنت يا كدودة إسكوها يا وعلي يا ولالك يا جعفر يا زيد بيسكو قبتي قبل يري فاقتسم فيها علي وزيد وجعفر ميدول يوحول قبل أنا كورينية اللي أضيق والشهادة قاتل أحد بكل انطي والمير أنا كورينية دقالينية وعينك سؤال لك الحكومة وما بحنا ميدول بين قلبي سلا إلى علي نبي صلى الله عليه وآله وسلم ضد أيادي عجيب كسوق الحكومي قلبه نوفي إلى فيري هرت قبل بس قعنت سوقت النبي صلى الله عليه وسلم أمسك البنت بيدها قعنت قبط وقضى بها لخالتها هبريرتيد بو حكومي هرت قبل كان بير هبريرتيد ضد وحقبي جعفر صومها هلو دي وقبل وقال الخالة بمنزلة الأم habaryari booska hooyo ayay joogtaa sida adeer booska aabe u joogo gabadha halkaas lagu wareejiyay labadii saxaabi marka way taagtaageen gabadhii waa laga wareejiyay Soomaa ninkii yiri gabadha aabaheedna walaalnimo islaamnimo naga dhaxayso ana idinka xiga iyo kii yiri waa in adeertayba rasuulku sallallahu alayhi wasallam hagaaji Ali muxuu ku yiri faqala li Ali anta minni wa ana minka warta aliyow gabadhan yar marka warkeeda la iska daayo nin igu bannaan baa tahay aniguna anigaan ku ahay adiguna anigaadi tahay marka hadii gabadh yar laga wareejiyay nabi maxamed baad bahaysataa salawaatullaahi wasalaamu alayhi waxa ka maqna dacali waa qanacay soo maaragt soo nabiga qalbigiisa uu ilaalin sallallahu alayhi wasallam Ja'far ibn Abi Talib buu la hadlay muxuu ku yiri adiga Soomaha ashbahta khalqi wa khuluqi dadka ninka igu eg baatay ليجا كا يقان حق أبورته حق دقن كبا وقنع سحابك سمجد سنة بيقول قنعني في صلوات الله وسلام عليه أخلاق ذا يا أبور كبا آد بدي شبه هذا أديب وأيقول أكتب النبي يقول صلوات الله وسلام عليه زيد بن حارثة بو فيري ننكي لها ولا كان سلام لما قلنا ولا الباقي ولا دلي وكاسم حكوير أنت أخونا ومولانا ولا الكياته ninkii aanu isxignay baa tahay
ninkaanu jeclayn baa tahay nabiga sallallahu wasallam alayhi waxay ku tusaysaa arintu dadka quluubtooda la dhiso inay cibaado tahay way ku tusaysaa cibaado inay tahay way ku tusaysaa bal u fiirsan nabiyullaahi ibraahim waataynu hadda sheegaynay kaana umma markuu alla yidhi kelmaddii tawxiidkayda dabka loogu riday ilaahay muxuu yidhi wajacalahaa kalimatan baaqiyatan fii caqibihi lacallahum yarjicuun nabiyullaahi ibraahim calayhi salaam ma jiro ilaa nabiyullaahi subxaanahu wa tacaala nebi ilaahay soo diray subxaanahu wa tacaala ibraahim dabadii ilaa nebi ibraahim durriyaddiisi unbuu ka mid yahay ilaa nabiyullaahi maxamed ku dar salawaatullahi wasalaamu calayh weli qur-aankii baynu dhex soconnaa tusaalayaasha markaan xadiidka iminka ka gudbo nabiyullaahi muusa hooyadii qur-aanka qalbigeedasa u kabay fiiri fircoon wuxuu xukumay wiilkii dhashaaba in la dilo wuu xukumay gabdhahana la iska daayay markuu wiilkii ay umushay oo ay aragtay inuu wiil yahay nabiyullaahi muusa ilaahay amar buu bixiyey subxaanahu wa tacaala muxuu ku yidhi an iqdi fiihi fi taabuuti faqdi fiihi fi lyammi falyulqihi lyammu bisaaxiri hooyaa hadda dhashay wiil kale ma leh hadda markay dhashay qaad sanduuq ku rid webiga ku tuur soo arrin adag maaha webiguna isagaa hadhow xeebta iyo halkaa geen doona iska mushaaxi doona oo tegi doona amarkaasaa la siiyey ilaahay markaasu wuxuu inoo sheegay markuu sidaa ku yidhi nabi muuse hooyadii qalbigeedu siduu ahaa wa asbaxa fu'aadu ummi muusa faariqaa nabi muuse hooyadii qalbigeedu wuxuu noqday mid maran buu noqday faaruq ah maxaa looga jeedaa faaruq ah ibnu kathiir markuu fasirayo wuxuu leeyahay min kulli shayin min umuuri dunya ila min muusa wax kasta oo arrimihii adduunka ah oo dhan qalbigeedii waa ka maqan yahay muuse bay ka fakaraysaa ila waa beer wax dhale caaway umushay badda ku tuur baa la yidhi ilmihii yara walaasu arrin adag maaha ya waa arrin adag sidii nebi ibraahimba loo yidhi wiilkiisa ismaaciil gowrac wiilkaagii sidii loo yidhi oo kale badda ku tuur allah subxaanahu wa tacaala laakiin qalbigeedii wuu kabay fii suurati alqasas muxuu yidhi فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن فرددناه موسى وعلني إلى أمه هو يدي بأن كي تقر عينها سي قلبي جيدي إشيدو ودقان وقبوبان ولا تحزن أين أمرقون بأليه سبحانه وتعالى المي يرامك لقاضي فرعون باقبتي إسلامتي في سيقو دون وضا صار عرور مالهين نو دابا ليري islaamihii carabtu waxay dhaqan u lahaayeen islaanta irmaan ilmaha nuujinaysa caanaheedaas waxaa may haysan dadku sabool bay iska ahaayeen caanahaasay ilmaha yaa laydin nuujiya war yaa ilma noo nuujiya yaa ilma noo nuujiya bay dhahaan markaasaa ilma loo dhiibtay nuujiyaan lacagna lagu siiya islaamihii wax nuujin jiro dhan baa loo yeeray muuse mid qura inuu naaskeeda qabsado waa diiday gabadhii walaashii ahayd bay hooyadeedu waxay ku tidhi dusha kala soco sanduuqu markuu biyaha dhex marayo fircoon baa qaatay caynkan warbixintay bixinaysaa gabadhi yarayd markaasay wiilkii oo naaskii diiday ooyaya bay waxay tidhi war anigaa garanaya islaamani carruurtu diidin ilmihii loo geeyaba naaskeeda huruf ka qabsanaya baan idiin aqaanaa nookeen baa layidhi nookeen islaantay sheegaysana waa hooyadii dee wiilkii gabadheedoo fariid bay ahayd moogta anaa garanaya bay tidhi ilaahay muxuu yidhi وحرمنا عليه المراضع وحالا وحي النوغ معها إسلامي نوجين جري وكحرم وكقديم والله سبحانه وتعالى إسلامتي بقى لها ويل كده ولا قورعيا كي يري وقورعيا وكبر يوغير مكاسا ويلي إنه بيل قرنا ولا وخصبه ويل كان نوجي بيل وكو قرينا ساسا الله كان موسى دبته يكو قبط المساء ورو ناس كقبصين لو هو يدي إلهي قلبي كده صغر وغير سبحانه وتعالى وكسأل فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن سيلاهي أكبر قلبك سبحانه وتعالى رسولك صلى الله عليه وسلم مركي أمك كقوستي لبعتدي قريش أيكو هيين مركو كقوستي نفتي سوو كينين واتو زيد بن حارثة ويري إن كان إنه طائف آدني والقلدة طائف أين لصو هذا اللي طائف بوتقي قلدي بلصو هذا اللي
وأي ديدين واتي سو شيدين ورسولك دخرين وديك كداديين إساقيا سحابي كلبا إلهي سبحانه وتعالى سوكي ومروغيسا مركي أصول نقضي محوق أبا القدي نمانكي قريشات واديدين رسولك إنه مكا سوقل ما سوقلي كرتبالي إرقو درسدي رقو يقاني ويري إيقا إرقا قادا نلو رنشري مطعم من عدي ويدور مطعم ومجنت هذا يسوقلي مكا مطعم با مجنتي سكسوقلي رسولك إنه سؤال مروغيسا با قلبي جيسا إلهي إنه كبوت معي dadkii dhulka joogay diintii dacwadii uu waday markay diideen samada ba loo qaaday al-isra wal mi'raj bal loo sameeyay subhana alladhi asra bi 'abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa kuwii dunida joogay hadda af garan weyday caalamka samada loo dhigay nabiga sallallahu alayhi wasallam qalbiga lagu qaboojinay todobadii samo ayaa malaa'iktii iyo anbiyadii wixii wala dhaafiyay ila meelaanu jibriil ba xitaa gaari karin uu halka ma dhaafi karaanigu بكر وبحي كاسو إلهي لشك يستي سبحانه وتعالى وصلاة فرل كذا كسو قاضي صلوات ربي وسلامه عليه وقلبي سنبي الله وكله صلوات الله وسلامه عليه سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا سيان آياتها يغا أتصنا عليه سبحانه وتعالى إلهي سبحانه وتعالى هيرها إسقبه يقويسسك أولاد مركي إسقورسدان يا بحية إسقاسية هير وحوسية ويلل هيرنا وحوسية قبضو بسأة هير وإسقود دراء هير مدليس بكدقاء هير حوغا عرورتو كراتشية وكضاهية بل إنه يصبران بوفيريا كسألم حولي سبحانه وتعالى سيقول نيادة ودسية سيقا قيبتا بحين نينكي قبضو بدن لسية هنيات شبه haddii wiilal badan lagu siiyana in lagu dhibay hamoodin haddii la isugu kaadaray haddii awlaad la'aan lagu dhigayna ilaahay miyuu ku ilowsan yahay miyaanu ku ogeyn yahabu liman yashaa'u inaathan wa yahabu liman yashaa'u dhukur aw yuzawijuhum dhukranan wa inaathan wa yaj'alu man yashaa'u aqiman qalbiga lagu dejinaya marka adigu qoysasku waa sidaa waa in wiilal la siiyo ama gabdho kaliya la siiyo ama la isugu daro ama madalays laga dhigo ama dhasha inta laga raajiyo laga daahiyo mar damba la siiyo sanadaha horena awlaad la siinin kuwa waxaanu aragnay 10 sano aan caruuro u dhalanin 10 sano ka bacdi islaantii u kaxanteeda ilaahay dulaaciyay toddoba ay u dhashayna waa aragnay ma ujeeda marka adiga haddaad dadaashid oo reer aad samaysatid sida ilaahay wax ku siiyo ku qanca qalbi jab نبان هبين مهرد يوصل قال مال مهرد ويوصل قال وبعد العشاء وسلامي ورسكور هبل وفي عانه وخير محاكو قد عاي محاكا سيعاو ورنيه وحويري هذا ما هذا كريه قده محا دعاي اسلانتي با قبر يقول الشيء قبلي هوران لليتي قبر كلا يقول الشيء ورنيه واستغفر الله دبانكور ولله با قف عافمات كلا كسي كوهبي سبحانه وتعالى واستغفر الله ولله كياب سبحانه وتعالى مركا هدي حكا قلبي حمان هدي الله سبحانه وتعالى صاح وقر شيء حكا قلبي حمان الله سبحانه وتعالى قبلها هو كرامي النبي يقول صلى الله عليه وسلم وهل لو هشده عرورته مركا لقاها الله قبلها أقال سن بالنبي يقول صلوات الله وسلم وهل قالئة بالنبي يقول صلوات الله وسلامه عليه حيابها مهم كأه رسولك تلمامي صلوات الله وسلام عليه وحاكم ذا ضدك إن قلبك الله دسو حال ذا ضدك هايستا كديميسن كبسارة ديسن كباهن كدباتيسن إن قلبك الله دسو ضدك أوفي عنا وضدك عين كاسة والنبي صلى الله عليه وسلم يسقو ضدك اللذن وحيستا عفمات كقبا لهد ليه هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم بإخلاصهم وصلاتهم ودعوتهم وكما قال صلى الله عليه وسلم والإلهي ما وحكلوا إذنكو قرقاريا وإذنكو هيلينيا وإذن دقايا ودقالينيا كوينا تبرت الدرن مويان هو وايلك عرورت سبقا مساكينت
kuwa jilicsan baa ilaahay fiirinaya kuwaas toosnaantooda iyo salaadooda iyo daacadnimadooda iyo diintooda iyo ducadooda baa ilaahay idinku naxariisanaya subxaanahu wa tacaala kuwiinan xoogga leh ee caafimaadka qabay adduunka haysta oo wax burburinaya wax baabi'inaya wax qasaya haddii la eegi lahaa waa lidin rogi lahaa idinkoo dhan intaasaad ku dhaqantiin xagga kale rasuulka nin baa u yimi sal alla alay wasalam laba su'aalood buu weydiiyey waxaan ku weydiiyey dadka yaa ilaahay ugu jecel yahay camal la qabtana camalkee ugu fiican ii kaadi buu yidhi jibriil baan weydiinayaaye jawaabtan hadda ma hayee rasuulku jibriil buu weydiiyey sal alla alay wasalam jawaabtii markii waa timid war ninkii su'aashay weydiinayay meeye waa kan kaalay jawaabtu waxa weeye axabu nnaasi ila allah anfacuhum linnaas ilaahay dadka wuxuu ugu jecel yahay qofka dadka ugu waxtarka badan xagga diintoodana waxtara xagga adduunkoodana wax ka tara kaasaa alle dadka ugu jecel yahay subxaanahu wa tacaala micnaheedu waxa weeye bulshada aad dhex joogto ha ku noqonin culays laakiin waxtar ku dhex noqo bulshada dhexdeeda adiga naftaadana culays ha ku noqon reerkiinni hooyadii iyo aabbihii ku dhalay iyo qoyskiina culays ha ku noqonin bulshadiina culays ha ku noqonin laakiin qof wax soo kordhiyay noqo oo bulshada wax ku daran noqo haddaadan wax kale qabanan xitaa bal naftaada culayskeeda dad ka dulqaad isku filnow adiga keligaa cid kaleba ha joogto war adiga keligaa bal isku filnow laakiin haddii aad isku filnaan weyda keligaa oo caafimaad qabtid oo xoog leedahayo wax lagu soo baro aad soo taagantahay aad leedahay islaanta keen waxaan baabuur ku raaco keen waxaan moobeelka ku shubto keen waxaan maqaaxida wax kaga cuno keen waxaa ku sameeyo keen waxaan dhar ku soo garto sirwaal waxaan ku soo garto keen war ilaa goormaad keen odhanaysa liwaata jir baa tahay goormaa ka soo raynaysaa waa inaad bulshada culaysaada ku noqo dadka marka ninkaas waa axabu alacmaali ila allah acmaasha waxaa ilaahay loo ugu jecel yahay suruurun tudkhiluhu calaa muslimin farxad aad qof muslima qalbigiisa gelinayso oo aad ka farxinayso aw takshifu canhu kurba ama kurba haysata aad ka faydayso aw taqdi canhu daynan ama dayn lagu leeyahay la kurbaysan yahay aad ka bixinayso aw tatrudu canhu juucan ama gaajo haysa aad ka caydhinayso gaajadii raashin iyo wax aad siinayso markaasuu nebigu wuxu sal alla alay wasalam inaan qof walaalka iyo muraad iyo dan leh culays uu haysto oo xaajo iyo dan iila yimi inaan raaco oo muraadkii iyo xaajadii la soo qabto ayaan waxaan ka jecel lahay wallaahi masaajidkaygaa madiina inaan dhex fadhiisto 30 cisho iyo bil aan ku ictikaafo ku cibaadaysto ayaan ka jeclahay soo ma jeedi 30 cisho masaajidka ictikaafo oo ku cibaadaysto waa adiga naftaada mid ku gaara laakiin walaalka waxaad la qabatay waa waxtar adiga ka baxsan oo cid kale walaalka u qabanaysa way bil inaan ku cibaadaysto masaajidka qofka inaan wax la qabtaan ka jecel markaasuu rasuulku si amaano wuxuu yidhi qofka walaalkiioo hawlay ku timi intuu raaco wax la soo qabta xaajadii dantii haysatay ilaa uu muraadkiisii u sugo wax kala qabto maalinta yowm alqiyaama ilaahay lugtiisuu sugaa subxaanahu wa tacaala oo haddii alla idmaayo ilaahay wuu ilaaliyaa subxaanahu wa tacaala rasuulku sal alla alay wasalam ummadda rasuulkoodii buu ahaa sal alla alay wasalam macallinkoodii buu ahaa aabbahood buu ahaa ummadda rasuulku waa hagi jire bulshada marka dadka mas-uuliyiinta ah odayaasha wadaadada waalidka waxgaradka dadku intaa waa kaftamaya waxbaa laysku odhanaya hadallaa lays odhanaya wixii qalbiga waxyeelaya waa in qofka laga dhaahiyaa walaalka wixii qalbigiisa waxyeelaya kaftanka xun ha u dhex raacin adoo marka ku dilaya dee dadka qaar baa waxay ku yidhahdaan dadka hebelow waa kaftamaynaa ha caroonin balaayuu soo wataa warmuu soo tuntay ha caroonin muxuu kuu leeyahay waxbuu soo wataa marka horeba dee adeeru iga joog wax laga caroonayo balaaye ah maxaaba walaalka ugu dhihi yaa inuu ku duqeeyuu rabaa markuu leeyahay waa caroonin oo wuxuu rabaa inuu maaragta dee waxaad ka caroonaysay waxaad kugu akhriyuu rabaa marka maalin maalmaha ka mida waxaa dhacday nebiga sala allahu calayh waali wasallam xadiiska ibni xibbaan warinayo saxaabadiisa nimaad garanaysaan baa ku jiro la yidhaahdo cabdullaahi bin mascuud cabdullaahi bni mascuud wuxuu ahaa nin caata ah oo aad u dhuuban
لف أبوها عاتا انتو قف عاتي أبوها دلال مسعود رضي الله عنه رسولك يا صحابتي وذا تشوغا أيا وحو دمعي قيد عضية إنو لان عضية كسوقوي مركاسو تيك سدي انتو فراها اسكو تاغو عربها كورو قاداي بو لانتي سو جريا عضيغا احيد دبيل با كسو دحدي marka ninkuna waa nin dhuuban oo caata ah dabayshiga marka way ruuxday lagu hay isugu dhufat nimankii saxaabada ah waa ku qosleen marka itaal daradiis ninka dabayshu lagu hay isugu dhacis bay ku qosleen saxaabiga cadayga iska soo goostay waxba ma u oran waa fiiriyay waxba ma dhihin nabigu waa arkay salawaatu allah wasalaamu alayhi markaasuu saxaabada su'aal weydiiyay ma yudhikukum min diqqati saaqayhi idinka qoslin maayo ninka lugiisa dhuudhuumad ku qoslaysan caatada ah dabayshu ay saa u ruuxday baad ku qoslaysan kalmad yaablu nabigu salawaatu allah wasalaamu alayhi wa saxaabiga qalbigiisa degtay muxuu yiri walladhi nafsi biyadihi الله نفتيد قعنتي سكوشرتان كدارتي إنهما لبدا اللغوض دوبا عبد الله ابن مسعود أثقل في الميزان من أحد أثقل في الميزان من أحد ميزان كآخرة بورت أحد يا دركتين إلهي أكتي وقع لستهيب سبحانه وتعالى صحابي قد بسم الله ترشر كوتشي فاطمة هذا الوحى اللي يرى عادي أحين هذا الان عادي أحين إنما بالنبي يقول صلوات الله والسلام عليه سو قلبي يقول هديك كور هالمرك إنك هتبحثين وضرت قف بهالدعايدين بحلقوا دعايدين هبل لينك وسويه ها وسويه أنا بسنكي سألك أنتوا ليجي لا بقول ببليجي سنكيس هبل واحد ورنا يا وعيليه وهن طبعا قارنا ما قاعد كرت كل كلاسي ولا يحتى هدو كان هلا ريح تايري وعنتها بدنيه وعينك كان هرها لقى قايلينه qofkaas oo kale muxuu isdahaya dadka muslimiinta dhexdooda waa ceeb waxa soo kale qofka walaalka ah hadii hadal aan sax ahayn oo kaftana aad ku tiraahdid qalbigiisa ilaali adigoo mashar in lagu yiraahdo moogta in lagu yiraahdo marka rasuulku soo daweeyay markii ba fiiri salawaatu allah salaamu alayhi saxaabadina waa la hadlo way yiri idbi waay Anas ibn Malik ba wuxuu ka sheekeeyay qisa yaab leh wuxuu yiri Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu صفية بنت حيي وحي أهيد قباد ريباني إسرائيل ورسولك حاسسكي سي كميدة صلوات الله وسلامه أدنى أقروح بطنين صفية بنت حيي بن أخطب أيها قباد حفصل لي هذا عمر دلي أم المؤمنين لبضوا وهو ينكي مؤمنين تأي أيها وحي تري يضو دواد نمر نبي وذا قبايا هاين هو ينكي مؤمنين تأ حوغا مركا إنا يرتها بطي دمع مركا كاسي وعي تري بنت يهودي قبل الذين وصفيو أثال كذا وضودان ني يهودي أبعد علي بعد علي مركاسي إلميس هذا الكبار دمقي حوغا هذا الكبار دمقي أبير يهودي هذا ريبان إسرائيل لا يدوا مسلمة دوا مسلمين طيب وابن حاس كيسي أقل كيسي بيجوكتا صلوات الله وسلام عليه مركا عايشة حوغا دقين بيوقع قيسا وإن يهودية حفصة نتشيد نبي قال وصو قالي حفص ايشك صفية اويسة فقد لنا نقول صلى الله عليه وسلم مركاسو حكيري ما يبكيكي محاكا اوهي مركاسي وحي تري حاسكاقي حفصا وحي تري إني بنت يهودي أنا إنا يهودية بيقول تري نبي صلوات الله وسلام عليه وحكبلا بهذا الكهرت إنه يد قلبي قدتشي وحيري وإنك لابنة نبي أذيك وحاتهاي نبي قبل لي باتهاي ومحوشي دادي هارون ابن عمران إيو صوري بني إسرائيل دي ما هين أو ياشد ويصومها أذيك النبي باكو دالي شكذا كبح انت كلية ماها وإن عمك لنبي أذير كان والنبي موسى وشي نبي الله موسى بن عمران أذير كان والنبي وإنك لتحت النبي نبي نواكو قبا بل يا كاسة رون يا كاسة رون سو هذا العجيب ما قفك كاقو بيساني واعي نبي باكو دالي نبي با أذير كوا نبي با أنا كو قبا قلبي قيدي وادي قمك وأرنتي إلينتي وكا قوضي واحد عدي مركا ففيما تفخر عليك
maxay kuugu faanaysaa xabsa mayda ku gaari karto nabigu sallallahu alayhi wasallam xabsa u soo jeestay ittaqillaha ya xabsa ilaahay ka cabso hadalkana ku gujinaysa gabadha kada ilaahay ka cabso nabigu sallallahu alayhi wasallam soo qalbigeeda u dajiye fiir ninka reere wada qaba sideedaba Soomaalidu waxay tiraahdaa dangaladu qofka dumar qofka la qabto waxa looga jeedaa damba iska gashay adaa u dhaxeeya labadooda damba iska dhasho awlaadaadi bay hayaan marka waa inaad noqotaa nin mas'uula oo kala basrin kara oo kala waxayn kara laakiin haday tan ku caydo aad u jiibiso oo tan ku maagto aad u jiibiso oo kugu dirto tan aad ay tiraahdo dhibaatada wax ku sameeyso suliyad ma nabi suu hagaajinay sallallahu alayhi wasallam Ikrima bin Abi Jahl gabagabada kalmadeena Ikrima Abu Jahl baa dhalay ninkaad garanaysan Abu Jahl waa fir'aun hadi al-umma baa dhalay gaalnimo ku dhintay wiilkiisa Ikrima bin Abi Jahl wuu soo muslimay markii Makka la furtay qof kasta waa yaqaanaa ninkaasi waxa dhacday Ikrima bin Abi Jahl magaalada Makka markii uu soo dhawaaday nabiga sallallahu alayhi wasallam ayuu wuxuu ku yiri yaatiikum Ikrima ibn Abi Jahl Ikrima Abi Jahl baa idin iman doona markii Makka la qabsado cararay doon raacbi siriyo xagga jidda intuu kabeelaha intaad gaaray ka carar arlada islaam wanaagsan buu qabayo ka soo daba oraday oo soo celisay oo amaan rasuulka uga soo xidhay oo soo keentay oo soo dabaashay soo sabtay nabiga u keentay oo soo qancisay isagoo mu'minu idin iman doona isagoo soo hijrooday buu idin iman doona fala tasubbu abahu abiha ayin abi qalbu hasoma ha ku ayin marka qofka abihi waa xumaan kara qofka wanaagsanaan kara inanka xumaan kara abihi waa wanaagsanaan kara labada qof ee ama nasabka ama rahimku ka dhaxeeyo haduu qof xun yahay qofka kale ha ku dhibin ha ku caayina ninka abihi bu nabiga sallallahu alayhi wasallam maxaa yeelay caayidu ka nool bay dhibaysaa ka dhintay wixii loo qoray waa gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam la tasubbu abah abihi caayina fa inna sabba al-mayyit maydka cayda la caayo yu'di al-hayya ka nool bay dhibaysaa oo de waxay isu yihiin wala yablughu al-mayyit maydkana ma gaaray nabiga sallallahu alayhi wasallam adillada quraanku aad bay u fadli badan markay soo degtay la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahidina fi sabilillah masinaba ilahi subhanahu wa ta'ala kuwa fadhiya in duulaanka galna mu'miniinta kamida iyo kuwa mujahidiinta ahi masina markuu alla yiri subhanahu wa ta'ala fi sahih al-bukhari hadithka zayd ibn thabit ayaa waxa u yimid rasuulka ninkii indhoolaha ahaa abdullah ibn maktum ila kuwa fadhiyo ku jira isaga oo markaa aayadii akhrinaya ya rasuul allah law astati'u al-jihad la jahadtu hadan jihadka awoodi laha inna maqabe dambana haye waan jihadi laha wali ninka saxaabiga waxa la yiraahdaa indhalaantu waa laba qaybood qof baa ishiisu jeexan tahay laakiin waxba arkaynin isaga ishu waa isku malaasnaydba hatta jeexida isha ma lahayn waa isku malaasnaa harag waa malaasnaa ninkaas waa jihadi la rasuulka ilaahay nin noolaana wuu ahaa ilaahay marka subhanahu wa ta'ala waa u qalbi tajiyay la yastawi al-qa'iduna alam xir subhanahu wa ta'ala la yastawi al-qa'iduna min al-mu'minina wal-mujahidina fi sabilillah ghayru uli ad-darari wa laga reebay Soomaaliyeed kuwa dhibta u saaxiibka ah oo dhiban mooyaane waa jiiski waa kii bukay waa kii indhahala ah Soomaaliyeed kuwa laga reebay ilaa meesha dagaal ba ka dhacay moogta ilaahay waa ka reebay subhanahu wa ta'ala si qalbiga loo dhisay qalbigooda u fiirso waxyiga uu soo dhisay ghayru uli ad-darari ilaahay uu dhisay subhanahu wa ta'ala qalbigooda arimahaas walaalayaal waxay faa'iideynayaan in aad iyo aad qofku ugu dadaalo dadkii salafka ahaa waxay oran jireen man saara bayna an-naasi qofka dadka ku dhex nool ee dadka la dhex socda hadii alla idmay dhexdooda ka shaqeeya jaabira lil khawatir isagoo qalbigooda kabaya adrakatu inayat Allah ilahi inayadiisa ilaalintiisa qofka helaysa wa huwa fi jawfi al makhatir isagoo khatara ku jira ila dad khatar ah haysatu qalbiga u dajinaya inta uu soo madaaxaya uu soo dabaalaya uu dajinaya qalbigooda ilaahi isaguna hawlaha culus markay haystaan faraj buu fura ilaahi dambigeena ha dhaafo dambiga waalidkeena Allah ha dhaafo dambiga muslimiinta oo dhan oo wixii dhintay iyo waxa noolba ilaahi dambigooda ha dhaafo ilaahi shacbaan ha inoo barakeeyo ilaahi ramadaan ta nabad qab iyo caafimaad
إيمان أمن الله ينقو قارسي كوي صوما وعفماد ينبدلية كو صوما وخير كو صوما إلهي أقبله شنيايو نبض كل ما يست الله ينقدر إلهي سبحانه وتعالى وكبر ينا علم نافع يعمل صالحة ومد استشعال ولا لا ومسلمين وسقل بفيعا ويسن حريسته وحقق عنته يا هذا الكي فعل كما يسون حريسته الله ينقدر وجزاكم الله خير والسلام عليكم ورحمة الله.